igan waa laydin siiyey waa laydin qaybiyey shalay waad soo akhrideen waxaan idinka codsanayaa mudanayaal iyo marwooy sharcigan inuu qof waliba fikirkiisa oo aan shakhsi iyo meel midna taabanaynin oo si guud qofku fikirkiisa dan qaran isagoo ka fikiraya inuuga hadlo buuq ma leh sidii shalay aan u doodnay oo kale ayaan rabaa maantana inaynu u doodno oo qof waliba fikirkiisa uu cabirto uu si dan guuda u cabirto oo ayna noqon inaynu sifooyin kale duwan oo aan fiicnayn aynu u fiirino waa inaynu si dan guuda uga hadalnaa waxaanan idinku soo dhaweynayaa inaad isqorteen baan filayaa waxaa maanta sharaf noo ah oo farxad noo ah inaan u fadhino kalfadhiganiga saddexaad fadhigiisii labaad oo looga hadlahayo masiir ama wax la yidhaahdo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo dhaxalka ummadda Soomaaliyeed meel gudoomiye sharcigan ama mataqaanaa xeerkan dowladda gobonimada iyo midnimada geyga Soomaaliya oo inoo soo gudbiyeen golaha baarlamaanka aqalka golaha shacabka oo ku saabsan gudbinta xeerka dowrista gobonimada iyo midnimada geyga Soomaaliyeed waxaan filayaa waa arrin aad iyo aad u baahan in la saaro maskaxda ugu weyn maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa waa lag idaad oo dheelalow lama cuno waa dhaxalka ummadda Soomaaliyeed waa masiirka ummadda Soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa golaha shacabka oo hindis sharciyeedkan qabyada ah noo soo gudbiyey ayagoo oo maskax badan geliyey soona koobay qodobo fara badan oo dastuuri ahna soo qaatay mudane gudoomiye mudanayaal meel haddii la yidhaahdo wixii ku habboonaa waxaa la fiiriyaa oo keliya maxaa lagu dari karaa maxaase laga dhimi karaa marka aad noo qaybiseen shalayto ilaa xalaytana aan muxuu ahaa soo akrinaynay ama aan dib ugu noqono qodobadan ama ha ahaadaano axdiga u degsan jaamacadda carabta ama ha ahaadaano axdiga u degsan midowda Afrika ama axdiga islaamka mataqaanaa OIC u degsan iyo mabaadi'da sugaya xurmada gobonimada iyo midnimada geyga Afrika ama Soomaaliya si ay u soo qoreen golaha shacabka mar labaad ayaan uga mahad celinayaa kaliya wax loo noqdo kale oo fara badan ma lahan qodobada dastuuriga ah ee qodobka 7 qodobada dastuuriga ah oo ay soo qaateen sida qodobka 7 qodobka 53 54 qodobka 51 intaba waxa weeye waa qodobada dastuuriga ah oo uu qeexayay dastuurka naga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo wali si faahfaahsan ay u soo qoreen waa mid aan uga mahad celinayo kaliya waxay ila noqotay inuu wax yar loo noqon karo qodobka 69aad markay yiraahdeen markuu arkay qodobka 69aad ee dastuurka federaalka oo qeexaya golaha shacabka awood u leeyahay in golaha shacabka awood u leeyahay curinta sharci cusub oo aan ahayn kan miisaaniyadda waa sax qodobkaas uu yahay uu sax u yahay laakiin waxa kale oo meesha ku jiro oo ay ka tageen malay walaalaha golaha shacabka inay soo raaciyaan ama aan isla yahay anaga inoo hambeeyeen qodobka 8aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya kaasoo oranayo sharci qabyo ah oo heer qaran ah waxa curin kara golaha xukuumadda ama B ugu yaraan 10 xubnood
oo ka tirsan golaha shacabka saas si leeg qodobka labaad isla qodobkaas 8aad wuxuu leeyahay sharciga qabyada waxa golaha baarlamaanka federaalka u soo bandhigi kara ugu yaraan hal xildhibaan ama hal wakiil oo ka socda dowladaha xubnaha ka federaalka macnaha aqalka sare dowlad goboleedka Hirshabelle 8 xubnood bay soo dirsadeen hal xildhibaan oo kamid ah Hirshabelle ama hal xildhibaan oo kamid ah maxaa la yiraahdaa Jubbaland ama hal xildhibaan oo kamid ah Galmudug ama Koonfur Galbeed ama xildhibaanada dowlad goboleedka soo dirsadeen hal xildhibaan oo kamid ah yaa u ogolaanahay inuu sharci qabya u soo gudbiyo إيكادي وواحد قرني يا هل دولة قبلت ما هل دولة ها سديد حبنوت وأد بدو ما ستة بروفيسور معلم كيجي ويران هل عندها ويران هل وكيل أو كسعودة حبناها دولة قبلت كذا حبناها كأه دولة ده حي بي أما جودي كستو أو كمله أقل كستره برلمانka federaalka ah waxaan filayaa qodobkaas kaliya ka tageen oo kaliya ka jaro macna ما ماشي تكلم qodobkii 69aad ee aan ka hadlay waxa kaliya oo lagu dari karaa ama ila tahay maadaama ay sanadaro badan ka dambeeyaan ayuu fikirkooda ku darsanayaan anigu aragti ahaan waxaan ku soo biirin lahaa mudane gudoomiye in lagu daro iyo qodobka 8aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya inta kale to waxa ka bedelo oo weyn ma arkin ama ima muuqdaan haddaba markaan intaas uga baxo oo ninka odaga hadlay wuxuu yiri meeshii hebel uu ka bilaabay meeshuu ku dhameeyay oo ku dhameeyay baa laga sheegay kaliya haatan golihii shacabka meel ka bilaabay baa annaka bilaabahaya meeshuu ku dhameeyay oo ku dhameynaya taasoo dhigaysa marka maxay tahay shirkadda la yiraahdo DB World iyo heshiiska ay gashay si golaha shacabka u sheegeen waxay muujinaysaa markaan qodobadan aqrinay inay tahay mid aan sharci ahayn oo xadgudub lagu xadgudbay sharafta iyo karaamada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed intaas waxa ka dheer kulli wad fiirsanayeen baraha bulshada iyo meelaha laga wada hadlay iyo agaasimahooda wuxuu dheer ku ahaa aflagaado oo qaranka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed uu soo marinayo hawada taasna waa wax kala gooni annagoo diidanayn horumarka sharafta wanaagga dhammaan Soomaaliya gaar ahaan walaalaha iyaga gobolada waqooyi ee Soomaaliland horumarkooda annagoo diidanayn waxaan ku soo koobayaa shirkadda DB World waxa ay mataqaanaa la timid wax la qaadan kara ma ahan wax noo cuntami kara ma ahan wax ummadda Soomaaliyeed cuntami karana ma ahan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan maanta arrintan aynu u fadhino haddaynu nahay golihii aqalka sare ee ka soo gudbay baarlamaanka federaalka golaha shacabka Soomaaliyeed waxay aniga ila tahay inay jirto horta degdeg fara badan oo ka muuqda go'aanadan laynoo soo gudbiyey anigoo aan diidanayn in la difaaco dalka Soomaaliyeed badda Soomaaliyeed iyo hawada Soomaaliyeed mar walbana ay tahay taan u taaganay inaan difaacno dalkeena iyo dadkeena oo aan ku metelo meeshaan maanta fadhino waxaase aniga ay iiga muuqataa in degdeg fara badan ku jiro sidoo iminka sheegayay walaalkay senator mashruuc habeenkii in wax inta la qoro Soomaalintii la asixiyo waxay ka turjumaysaa inay jirto degdeg fara badan arrintan maanta in horta la arrintii qarannimada Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad u arrin xasaasi ah waa arrin laynagu dhafar taabanayo maaha arrin fudud oo xasaasiyad iyo qof jeclaysi maxay heeto lagu fuliyo golaha shacabka waa mahadsan yihiin waxaan u aaminsanahay jibadii wadaninimo baa qaaday oo wax badan kama fiirsan aad bay u mahadsan yihiin laakiin annaga maadaama aan nahay golihii aqalka sare ummadda Soomaaliyeedna wax badan inaga rajaynayso
horta mar walba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan qarannimada Soomaaliyeed waxba ku iibsanayn inaanan wadan Soomaaliya leedahayna halkaa ku ha noqdo dawlad kale ku sibood garaynayn laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go'aanada aan gaarayno ee soo saarayno waxaa la yaab noqotay oo hadda qodobada ku jira meesha sidoo sheegay walaalkay senator mashruuc dawladda Itoobiya oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay ma leh dawladdu kama hadlin golaheena shacabkana kama soo hadlin way dawladda Itoobiya loo diiday xaaladdu waxa weeyaan aabow ka yariga qabo ka weyn ugu soo daa dawladda Itoobiya lama sheegi karo inay wadankeena ku xadgudubtay waxay leedahay dawladda Itoobiya waxay samaysatay maanta wasiirkii dekedaha Itoobiya dawladda sir dekeed ma lahaan jirin waxa loo samaystay waa dekedaheena way loo qarinayaa in Itoobiya wadankeena faragelin ku hayso maxaa loo diidan yahay in Itoobiya loo sheego wadankeena inay dilaal ka tahay mise Itoobiya waxba kama sheegi karto xukuumadda iyo baarlamaanka midna war annaga waxaan ognahay imaaraadka carabta iyo DP World wax ka weyn baa jira waxa fududeeyay inay wada hadlaan Somaliland iyo DP World ama imaaraadku waa dawladda Itoobiya safaaraddeedina fiila Soomaaliya dhexdigad arrintaasi wax aan qaadan karnaa xukuumadda waxaan ka rabnaa mowqifkeeda ku aadan Itoobiya inay shacabka Soomaaliyeed soo bandhigto annagana noo sheegto laakiin hadday noqoto xaaladda cudurka ka galay farda hadii laga gubo dabeer dawada lama gaarin war Itoobiya ha loo sheego khaladaadka dalkeena ay ka wado bilaalka ay dalkeena kula jirto laakiin inta aynu leenahay hebel baa wax yeelay hebel waan qarinaya wax la qaadan karo maaha annagana haddaan nahay dadkii shacabka Soomaaliyeed ee dushooda la isku iibsanayo ka wakiilka waxaan oran lahaa arrintani aan ka fiirsano ha loo yeero safiirka imaaraadka ha loo yeero safiirka Itoobiya oo dhexda u fadhiyo xiriiryaha DP World iyo maxay haytay iyo Somaliland ama heshiisadan jira waxa la yaabaa Puntland waxa la joogta DP World baraaway joogtaa airportka Muqdisho hadday may baarlamaanka Soomaaliya waxba kama ogin waxa ka soo baxa cid qaadata war ma hayno inteeba uu Turkigu leeyahay inteeba annaga shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed leedahay saldig military baa la bixiyay oo Turkiga la siiyay laynoma sheegin oo laynoma warkeenin war dalkan wuxuu u baahan yahay fikrad fara badan iyo inaan ku salayno wixii aan u dhaaranay inaan qof jeclaysi iyo reer jeclaysi iyo hebel jeclaysi ku sibad garayna ma waxa laynooga baahan yahay maadaama aan nahay dadkii u dhaartay shacabkan Soomaaliyeed inaan ka dhabayno wixii aan u dhaaranay haddii aan maanta iyo bari ku wareegno DP World baa wadankayagii qaat DP World wax ka daran baa jira war Itoobiya car dawladdu waa taasi ku dhiirato oo ha tiraahdo wadankayga faraha kala baxdo dawladda Itoobiya oo lambar 1 ka ah cidda wadankeena iibinaysa ama dilaalka ka ah dawladda Soomaaliya in dad gaar ah u yeelato xukuumaduna go'aan degdeg ah ka soo saarto haddii kale haddaan maanta oo dhan ku reebi buuba mamnuuc DP World waliga ama mamnuuci kartido halkii ku xanuunaysay haddaadan taabo dhakhtarka u sheegin maanta ibraadu dawo kugu dardaro wax kuma tarayso xanuunka ina hayaa waa Itoobiya dawladda Soomaaliya mowqifkeeda noo sheegto ilaa hadda noobay sheegin waxaan u arkaa in dawladda Itoobiya dabadeeda lagu qarinayo cid kalena la maxay la tarbi garaysanayo annaga ma jeclin marna dalka Soomaaliya in lagu soo xadgudbo waxaanu ognahay dalka Soomaaliya oo fadhina inaan difaacno shacabkeena waa difaacayna raalina ku noqon mayno in wadankeena lagu dulubsado annagoo nool laakiin dawladda Soomaaliya igama muuqato kaalinteedii ay ku lahayd arrintaas difaaca dalka xamaasad iyo caadifad baan u arkaa haddaan dib ugu noqdo ra'iisul wasaareena Soomaaliya maalintii heshiiska la galay imaaraadku joogay imaaraadka markuu ka soo diray Muqdisho wuxuu ku qabtay airportka shirtiray way ra'iisul wasaaruhu isagoo imaaraadka jooga shirka u diiday way heshiiska u diiday ma markuu Soomaaliya ku soo noqday uu Soomaali noqday markuu imaaraadka joogana qof kale waxa arrimo badan baa jira meeshaas waxaan dilayaa aan ka fiirsano annagoo u taagan inaan difaacno dalkeena iyo dadkeena aad baa u mahadsantihiin dowladda gobonnimada iyo midnimada gayga Soomaaliyeed ma aha mid gorgortan gali kara ma aha mid noqon kara in mugdi la geliyo mudana gudoomiye adigoo mahadsan waxaan leeyahay baarlamaanka golaha shacabka waa mahadsan yihiin qaraarkii ay soo saareen ma ka gorgortamayna mugdina ma gelin karna loomana fikirayo haddii ilaahay idmo anigu waxaan qabo fikirkayga arrinta midnimada iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waa mid jirto waana mid jiri doonta diidnay inay DP World iyo gacmo shisheeye
dalkan ay lug ku yeeshaan kana taliyaan inta aan noolna haddii ilaahay idmo magac xumana nagama soo raacayso waxaan leenahay arrinkaa isaga ah cid kasta oo maanka ku haysa ama ka fakeraysa arrintaa in mugdi la geliyo war ma geli karto qarnimada Soomaaliya waan u taaganahay waxaan maanta nasiib u yeeshay inaan codkayga ku difaaci karo inta aan dhimanayna waana ku difaaci doonaa waana garab taagnaan doonaa shacabka Soomaaliyeed rabitaankoodana waa hirgelinaynaa haddii ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mahad celinayaa mar kale shir guddoonka runtii sida habsamida lah ee ay ilaa shalayto u hogaaminayeen kulankeennan runtii qiimaha lahaa ee sida habsamida u socday waxaan sidoo kale iyagana hambalyeynayaa senatarada dooda ka qayb qaadanayay sida hufan oo aan aaminsanahay haddaynu waxa aynu ka doodayno siduu yahay haddaynu sii dayno iyo haddaynaan sii daynba runtii ina muujiseen si ka duwan sidii golaha shacabka in dad meel siyaasad lagu karinayo oo la doonayo in wax laga bedelo ina joogtaan oo dood effective oo saameyn leh runtii ina soo bandhigteen anigu shalayto waxaan ahaa dadkii soo jeediyey in dib laynoogu dhigo labadii duhurnimo markay ahayd baa la yidhi ajendaha isagoo ku jira qodobkani xasaasina ah cod ha loo qaado anigu dadkii aad uga soo horjeestay baan ahaa waxaan filayaa xildhibaanada intii iga aragtida duwaneed inay dareemayaan faa'iidada ku jirtay arrintaas saacaddaasi odhan war bay ahayd doodaa fiican ee hufan lama heleen senataradu maanta waqti fiican bay heleen si fiicanna waa looga dooday waxaan aaminsanahay waxaynu meesha u fadhinaana waxa weeye waa isqancin wanaag baynu doonaynaa waxaynu doonaynaa inaynu halkan haddii talooyin iyo waxyaabo dalka u wanaagsan ay ka soo bixi waayaan ogaada waxaynu failed state-ka u nahay waxa weeye dadkii la doonayay dalkan inay hogaamiyaan iyo soomaalidii dalkan lahayd sidii la doonayay inay u fikiraan ay dalkan uga shaqeeyaan ugama shaqeyso haddaynu talo wanaagsan leenahay xamar bay ka muuqan lahayd cidna yaynaan eedaynin waa hubaal wey markaas waxa sidaa inaga dhigay dadku adduunyada oo dhan tartan baa ka dhexeeyo cadow baa la isu wada yahay laakiin cid waliba talooyinkeeda iyo go-aanadeeday ku meel martaa Soomaaliya iyo Soomaaliya cidna eersan mayso tuulo hadday nabad tahay dadka jooga nabad ka dhigay taana waa inaad niyadda gelisaan hadday magaalo caasimadii nabad tahay dad kale ee jooga nabad ka dhigay Soomaaliya qaybaha ammaanka ah ee imika sida fiican loogu nool yahay dadka jooga ee degan odayaasheeda iyo madax dhaqankeeda iyo siyaasigeeda ayaa ammaan ka dhigay taana waa inaan ammaanka gelinaa 1991 burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay dadku dee waa kii xaafadihiisa ka kala cararay nin waliba magaaladiisa yareedii tuuladiisii buu dhistay xitaa guurkii baa lagu kala tago nin waliba inantay maadarka ahayn buu guursaday markii Soomaalidu kala yardhowday sidaa markay tahay waxa weeye xaqiiqadaan idiin sheegayaa in hadalka lagama gabadee tayada haddii Soomaali isku duubnayd oo aan la kala garan jirin tayada tuulo kasta ciddii lahayd way muuqato anigu haddaan reer Soomaaliland ahay waxaan aaminsanahay dad genius oo caqli badan ka soo jeedo runtaan idiin sheegaya anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland baan ka muuqata arrintaas waxaan aaminsanahay halkan haddii la dhageysto inay wax ka bedeli karaan aaminsanahay haddaa laakiin mashxarad iyo marka qof hadal yiraahdo inta kacdaan Soomaali ay toosoo qaadaan oo aan hadalka la weelaynin anigu waxaan aaminsanahay saas ay ahaanaysaa weligeed iyo allaheed xaqadan dii sheegay fikirkaygaan hadlaya caafimaadka qaba arrinta in hortaala hadalku intaanu iga lumin waxaan idiin cadeynayaa anigu waxaan taageersanahay in arrintaa la bariyo waqti la siiyo xeer la ikhtiraacay halku mari jiray iyo wadadu lahaa sharciyan in la mariyo akhrintii koobaad ay noqoto waynu ka doodnay sidaa jurile iyo senataro badan oo kale waay aragoo iga horreeyey oo runtii hadalka nuxurkiisii dhameeyay ay yidhaahdeen la eego angalis fara badan laga eego oo waxa saameyn u yeelan karo codkeenna iyo gacantaaggeenna la eego mid baynu isku raacsanahay sharafta ummadda Soomaaliyeed inaynu ilaalino saas ma arka xigmad baan xusuusanahay nin reer Soomaaliland oo reer Sayla Cabiri wuxuu yidhi dowladii cigaal baa hadallahu naxariistay Soomaaliland mucaarad markaa ku ahaa wuxuu yidhi sheeku keer shaqeeyay isagoo baarlamaanka ka hadlaya wuxuu yidhi had iyo jeer dadka reer waqooyiga suugaan bay ku cabiraan had iyo jeer fikradahooda oo dad gabayga iyo heesaha iyo waxa aad runtii ugu fiican wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi Oromaa ayuu nin hal wataa ku soo hal foolanaysa ayuu nin eriyay nin Oromaa u soo hoyday buu yidhi fiid hashiibo halkan
beer halkana geliyay buu yidhi ninkiibuu dee cunto iyo biyo usoo doontay intuu wixii cunayay buu ninkii ku yidhi waa bal hash way fulinaysay beertahay baan geliyey inay hashii dhashay iyo soo eeg buu ninkii warmad ahaana weligii hal dhalaysaba ma arag lo buu lahaa iyo beer yar hashii buu dul tago wuxuu tagay hashii oo ilmo ka soo jeedo sida caadigaa normally waxaa dhalanaya wuxuu la soo dhacaa qaarka hore wuxuu tagay hashii oo cagaha dambe neef daba keena oo cagaha dambe ka soo jeedaan intaa dambe la soo dhacday neefkii yaraa manuu arag weligii laakiin waa dhif bay dhacdaa in neef daba keena ay xoolo dhalaan daba keen buu arkay hashii ka soo jeeda ninkiiba ku soo noqday ninkii baa hashii ma dhasho wuxuu yidhi waxay dhashay iska daayay qaar nool baa sii gelayay buu wallaahi qaar nool imakay qaar nool sii gelayeen buu yidhi anigu waxaan ka baqanayaa sidaynu u shaqaynayno u fikirayno inaynu Soomaali isu keenay iska daayo inay imaka qaar goostaan oo Jubbaland iyo ku dhawaaqaan waanu gonay anigu saasaan ka baqanayaa oo idinku dheereeyay runtii hadalka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu waxaan principally in ummadda Soomaaliyeed sharafteeda meel lagaga dhaco anigu waxaan say cid kaa baadriyootin ma jirto oo kaa wadanaysan in sharafta ummadda Soomaaliyeed meel lagaga dhaco anigu marnaba ma ogoli dhulka Soomaalidana in dadka loo cadaawiga qaataan marnaba ma ogoli xildhibaanada sheegay oo Somaliland dadka joogaaba iskuma raacsana heshiiska DP World iskuma raacsana in badan baa ka soo jeedo le sidee xabashada wadanka iyaga Ethiopia wax looga siiya sidee bay saamiga ugu badan shirkadda DP World u qaadataa argumentkaasi markuu halkaa ka jiro kamaynaan fikirin qaabkii siyaasadeed ee dadkaana aynaan taageeradooda u lumin lahayn dadka Somalilandna aynaan waxba ku yeeli lahayn heshiiskana aynaan bal inuu sii socon karo iyo qiimeyn rasmi runtii maynaan samaynin marka waa ka baxaya runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan la mowqifahay oon soo jeedinayaa guddoomiye in la mariyo processkii ay mari jireen xeerarka la soonka ay mari jireen waliba kan uu ka sii xasaasisan yahay waxaan ku sii dari lahaa anigu in loo yaro iyo dad sharci yaqaanaana lala kaashado guddida u xil saaran iyo ciddii lagu xoojinayo loo diro waqtina la siiyo asalaamu calaykum reer Somaliland mise wax dalkan dhaqa oo boqolka sano ee soo socda la eegay la lafaguray oo la eegay saamaynta dhaqaale sidii xildhibaanadu sheegeen oo la eegay saamaynta siyaasadeed ayaa lagu saleeyay boqolkiiba boqolna waa ka soo horjeeda anigoo qarannimada Soomaaliyeed aaminsan baan ka soo horjeedaa inaanu kaasi waxaas ummadda Soomaaliyeed dhaqayn maanka aynu ku hayno in proxy war ka jiro Soomaaliya quwada shisheeya Soomaaliya ku dhex dagaalamaya haddaynaan maskaxdeenu aanay capacity gaar ahaynaan waxaas oo dhan aanay ku urursanayn dee waxaynu meesha u joognaa waa iska khiyaali Soomaaliya waxa ku dhex dagaalamaya dagaalka khaliijka ee carabtu iskaga soo horjeeda xamar gudaheeda iyo Soomaaliya ka socda dagaalka Suuriya ka socda ee Ruushka iyo Mareykanku iskaga soo horjeedaan halkan uu ka socdaayo dee Sacuudiga iyo Turkiga Sacuudiga iyo hadday xulafay yihiin Imaaraadka iyo hadday xulafay yihiin Iran iyo dad kale oo aan weligeed wadankeena imanana dad kale ila xulafayino halka waxa ka dhacaya maanta cid waliba saasay ay ugu haysataa binikuleeda ugu haysa iyo ciyaariyeedan la noqonin haddaynu karno aynu leenahay awoodda inaynu faragelinta Soomaaliya lagu hayo tallaabo ka qaadna adag oo sidii Crimea Ruushku markay yiraahdeen waanu gonay oo xaggaasuun marka kula dagaalka ka mariyay dadana uu 10 madfac ku dhuftay lagu aamusay haddaynu sidaas samayn karayno aynu xadka Djibouti intaynu badda marra xagga kaga nimaadno DP World iyo wixii afka taagaba aynu madaxa ka jabino haddayna awoodda leenahay weeye haddii laakiin xitaa waxaynu ansixinaa inuu cadho abuuro mooyaane aanu waxba tarayn oo xamarayna ka bixi karayna nafkooda ka tagi karayn hadalkeena maxaynaanu miisaamayn sideynaan hadalkayna ka soo baxaya halku ku dhacaya hadalku meel dheer buu ku dhacaa baa la yidhi sideynaan hadalka u miisaamayn aniga priority-ga koobaad waxa weeye ee halkaa ay saaran road mapka Somaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlayaan inaan la dhaawacin weeyaan diyaar imika waxa ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan waan sugi kara la anigu arrinta niyad jab ka weyn inta xamar joogay ugu dhicin go'aanka golaha shacabka maalintii dowladda durdurada ku ansixiyeen dumarkii madaxweynaha ka hor musharaxada ee lahaa baarlamaanka lagu dhex dheeray ee deetana gacanta loo taagay mina subaxdii 10kiiba naga hor yimaadeen iyagoo soo dareeray siday dad qof soo aaseen waxaan idiin sheegayaa anigu xildhibaanada sharafta leh inaynu si fiican u fikirro ka baaraan degno waxaynu samaynayno saamaynta uu heshiiskaasi yeelanaya aynu ka fikirro imaaraadka carabta xamar bay safaaradda labaad bay ku leeyihiin ugu weyn safaaradda Turkiga marka laga reebo waa safaaradda labaad ee ugu weyn bay xamar ku leeyihiin imaaraadka
ciidan bay gacanta ku hayaan xamar degan oo xoog u tababaran oo waxay doonaan sameeya oo shalay aynu halkaa kaga hadlayno senatarada qaar lagu dhibaateeyay bay imaaraadka gacanta ku hayaan etoobiyana heshiiskay qayb ka too xadka ugu dheer soomaaliya iyadaa lale ciidankeeduna soomaaliya jooga amisomna wuu ku jiraa iyadoona amisom ku jirinna ciidankeedu xuduudda soomaaliya dheer halkay doonaan intay ka soo galaan oo ay shabaab kula dagaalamaan oo ciday doonaan ee kale ku rabshaan ayay iska noqdaan xamar agagaarkeeda dagaallaa ka dhaca ay al-shabaab iyo qurumo kaloo inaan garanayn isku laayaan maca madaxweynaheen iyo ra-iisul wasaaruhu gariir kun maqlaan hubka la isku ridayo soomaaliya ma fargelin baa u dhiman waxaynu khiyaaliga isugu sheekaynaynaa qofka ima kale soomaaliya lasoo farageliyey war soomaaliya waxa ka socda xamar agagaarkeeda inaan xitaa inagu warhaynin waxaana taa keenay waxa weeyaan dee failed state baynu report kasta adduunka kasoo baxa ku qorannay oynu bejka koowaad kaga qorannay kana baxsan mayno ilaa aynu la nimaadno commitment inaynu waxaynu leenahay soomaalida ku dhaqno oo aynu waxaynu leenahay dalka ku xukunno fikradaha imika laysku haysta ee xitaa codkaa imika la qaaday riixayaana waxa weeye proxy warkaan sheegayo fikrada shisheeye nagu jira annaga xitaa hana la yidhahda haddii la doono dalalka carabta ee isku haysta siyaasadda soomaaliya ayuu qaar taageeraya qadar iyo way iskaga soo horjeedaan imaaraadka dalkeenna labaduba faragelin aan qarsoonayn bay dalkeenna ku leeyihin etoobiya faragelin ku leh turkigaa faragelin ku leh oo shirkadaha imika ka wada dhawaajiseen ee airbortka iyo haysta anigu guddida khayraadkan ku jira oversightka waxaan ku leeyahay dekedda iyo duulista hawadaba inaan kormeero oon la xisaabtamaan leeyahay wasiirka iyo maarayaha dekedda iyo ka duulistaba aqalka saraan ugu yeedhno halkaasaan ku wareysanay mid waliba wuxuu yidhi taas haddaad tegaysaan idinku taga idinku orda u taga bay dhahdeen idinku caasimaddii baad joogtaan ninkii yidhi muxuu yidhi socon weyne muxuu yidhi aan cararo kadib anigu waxaan u malaynaya codkaygu waa horaan dhiibay waa ku celis waxaan dhahaayo hadda horey baan u dhiibay kolkaynu dib u eegno arrinta Dubai Port World heshiiska waxay gashay ka hor intii aynaan maxaanku idhaahdaa madaxweynaha dalka aynaan dooranin ayaama ka hor bay ahayd waxaa laga joogaa sanad iyo zaa'id intaa way soo socotay waxaa ku xigay heshiiskii boosaaso waxaa nasiib darro ah xukuumadda iyo madaxweynuhu inay maantana gaadhsiiyaan heerkan maanta inaan arrintan ka wada hadalno oo qaarkana dhahaan ha loo kaadiyo qaarkana ay dhahaan war aynu hawsha dhammaystiroo muran aanu galno waxaana geliyey hoggaankanagaana geliyey waxay ahayd wakti ay ku habbooneed inay ka hadlaan waxay ahayd wakti ay ku habbooneed inay mataqaanaa diblomatic journalistka ay adeegsadaan waxay ahayd wakti ay ku habbooneed inay hor istaagaan oo aan arrintanu la soo gaadhin in maanta qaybo ka mid ah xildhibaanadu ay leeyihiin war arrinta bal aan ka fiirsanno oo aan garanayno aan ka fiirsananada waxa ka hooseeya iyo journaliska habeenkii socda waxyaabaha habeenkii socda waxaan xusuustay kolkaan hadda hadalka ragga qaarkii dhegaysanayay habeenkii aynu ka hadlaynay arrintii qalbi dhagaxaynu nidhi ay rag dhaheen dib ha loo dhigo habeenkii oo dhanna telefoonnaha socday shalayta oo maxaanku idhaahdaa golaha maxaanku idhahdaa guddiga maxaanku idhahdaa joogtadu uu go-aan soo gaadhayna subaxdii aynu bedelay mowduucii tii baan hadda xusuustay waa nasiib darro inaynu maanta ka hadlayno iyadoo dalal shisheeyu ay faragelinayaan soomaaliya inaan maanta ka hadlayno bal aynu mataqaanaa tala sugno xukuumaddu way caddaysay waxay sheegi lahayd ra-iisul wasaaruhu wuu caddeeyey wasiirka boortiguna wuu caddeeyey dekedaha waxaan ma ogolin bay dhaheen mana ogin bay dhaheen waxa kale kasii raadinaynaa maxay tahay ma garanay waxaan ka raadinayno waxaa dhibaatooyinkana haysta ka mid a ama dowladdan ha ahaate hadda jirta ama kuwii ku horreeyey ha ahaatee heshiisye ayaynu gallay
ma garanayo wax heshiis oo baarlamaanka lasoo hordhigay oo la leeyahay ha laga hadlo. sharciguna wuxuu leeyahay heshiis kasta oo dowladdu gasho waa inuu baarlamaanka hor yimaado, baarlamaankuna ansixiyaa, madaxweynuhuna ku soo saaraa go-aan bulletin official ama gazette. waxa weeye waa arrimaha mataqaanaa nagu ridahaya in baarlamaanku uu tamana'o oo uu hadba dhinac eego oo aanu garan weyna tala meeshay naga jirto. ninbaa maahmaahbaa waxaa jirtay ma aqaan ninka magaciisa, laba nin baa wada socdo, libaax baa ka daba yimid. labada nin nina xoog buu lahaa, nina waa tabar yara. kii tabar yarayaabuu libaaxii marka hore qaatay. kii wuxuu islahaa libaaxii uu dhergay oo ninkaas kaaga hadhahayaa. amin dambe wuxuu arkay libaaxiyo daba socda. hebel baa waxba iigu filaanin buu, ninkiina igama dherginin, imana difaacana ilama gelahaya hadda, oo libaaxii ilama difaacahayo, ninkaasaan meel iigu filaanin weeye. annaga waxaa weye hogaamintaan meelan noogu filaanin ee beero taas weeye midda meeshan haysata. nama soo gaadheen arrintanu. fiiriyey waxaa la isku raacay inaanay wax fiican meeshan keenin. waxaa kaloo isweydiinaa oo aan idin weydiinaa sharciga Soomaaliya, dastuurka iyo xeerar kale noo degsan iyo xeer hoosaadyadeenaba heshiis caalami ah oo aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo marin miyaa dalkan ka shaqeynaya? may soo maaha aydan. su-aasha kale waxa ay tahay senator Cabdi Qaybdiid u dambeeyay haddana weydiiyey iyo senator Macow, sidan miyaan uga aamusnaa? haddaan se aamusno maxaa naloo keenay oo halkaan u joognaa oo sharciyadda halkaan aan ku fadhinaa maxay tahay? intaa jawaabtooda waxaa ka soo baxaya waxay noqonayaan in aan u adeegno shacbiga Soomaaliyeed, aan u adeegno dhulkeena, geygeenna uu ku jiro badda iyo dhulka iyo maaragtay cirkaba uu ku jiro inaan u adeegno. heshiiska aan dhahay marka xeerka markaan fiiriyay aniga waxaa ii soo baxday dhowr qodob ayaa ii soo baxday. kow, wuxuu sameynayaa xeerkan ka hortag ayuu sameynayaa. xeerkan ama sharcigan wuxuu sameynayaa ka hortag, oo wuxuu ka hortagayaa shirkado dowlado ajnabi ah oo damac kaga jiro dhulkeenna ayaa uu ka hortagaya. waxa uu sidoo kale siinayaa damaca annaga dhexdeenna ah ee qaarkeen laga yaabo inay mataqaanaa si sharci darro ah uga faa'iidaystaan ayuu asaga naftiisa ka hortagaya. markaan sidaas leeyahay waxaan ula jeedaa waxaa badatay isragjarrada iyo qaabdhismeedyada iyo dowlad goboleedyada iyo isbarbaryaac ayaa batay. waxaa laga yaabaa mar walba qof walba wuxuu isleeyahay adduunyada wax ka keenso, wax dhacso, meel mataqaana qolo ku qanci. taa nafteeda ka hortag bay u noqonaysaa sharcigan saan isleeyahay. fowdo iyo in maaragtay aan la ilaalinin midnimada iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliya ayuu ka hortagaya sharcigan. ka hortag ayuu sameynayaa. laba, waxaa kaloo ii soo baxday ka daba tagna inuu sameynayo sharcigan oo ah in tusaalaha DB World loo soo qaatay heshiiska ay hadda Soomaaliya ku joogto una sharci ahayn, baarlamaankana soo marin, iyo heshiisyo kale in laga daba tago ayuu mataqaana daba tag u yahay, ka daba tag u yahay. waxa uu gacanteena ku soo celinayaa sharcigan in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay-adda sharciga ah ee marka u dambeysa qalinka ku duweysa sharcinimada heshiisyada noocaana. gacanteena ku soo celinaya sharcigan, aniga sidaas ay ila muuqata. marka haddii shacbiga Soomaaliyeed, baarlamaankii iyo xukuumaddii uu sharcigan gacantii ku soo celinayo dhulkii inay ka taliyaan oo ugu yaraan adaqbu iimaan ay noqoto in annaga iskale, annagana la soo maro awoodeeda maalinta aan yeelano ama haddaba haddaan leenahay aan fulinayno, ani waxay ila tahay in aanan ka aamusina ila tahay. haddaan sideena ku celinno oo golaha shacabka isaga celinno ama aan ka aamusno maxaa imaan kara? waxay ila tahay aniga waxaa imaan kara in dastuurkii dalkan uu meel cidnaa ku dhacayo, sharciga dalkan una shaqeynin. waxaa kaloo imaan kara in fowdada iyo kala iibsiga dhulkan iyo badda iyo cirkaba Soomaaliya la kala iibsado ay sii socoto. waxaa kaloo mataqaanaa sii dhacaya in shacabka Soomaaliyeed ay ka quustaan dowladnimada, baarlamaankooda si gaar ah aqal sare inay ka quustaan ayaa soo baxaysa. waxaa soo baxaysa in golaha shacabka ay 2/3 ay inta nagu meel maraan ma aragtay ay gudbinayaan, ay madaxweynaha u gudbinayaan ayaa soo baxaysa. dadka saaxiibada ee maanta oo dhan kusoo celcelinayay golaha shacabku way kusoo degdegeen. qof soo degdegay asoo 170 ku fadhiya 168 kuma codayo.
waxa uu xaqiiqsan yahay inay sax yihiin ayaa uu kusoo codeeyaa. waan dhihi karnaa habraaca maaragtay oo ahayd sharciga in 3 jeer la mariyo isla markii meeshay ku codeeyeen in maanta nafteeda loo codeeyo kaa naftiisay si ku meel gaara u laaleen isla maalinta ay codeynayeen. marka waxaan rabaa inaan maaragtay si kooban u sheego marka aan fiiriyay sharcigan in uu sameynayo ka hortag dhibaato waddankan kusoo socota markaan arkay inuu ka daba tag sameynayo wixii qaladoo dhacay in aanan ka aamusin waajibkeena aan ka gudano aan ilaalino laakiin habraaceena naftiisa aan ilaalino haddii 3 maalin ay qoraysay ama haddii maaragtay qofka ugu dambeeya oo hadla ay qoraysay in aan nidaamkii habraaca xeroosaadkeena uu qorayay aan marno aan nidaamkeena ka gudano in guddi loo saaro in meel kale la weydiiyo xukuumadda ayaa dad badan saaxiibada kusoo celceliyay xukuumadda wasiirkii ay qusaysay wuxuu ka soo saaray warqadu ka soo saaray mowqifkiisu uu cadeeyay ra-iisul wasaaraha shir jaraa'id uu qabtay mowqifkiisu uu cadeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda kalfadhigii 3aad furitaankiisa ayuu ka hadlay uu yidhi dowladnimada iyo midnimada iyo gobonimada Soomaaliya waa in la ilaaliya waxayba ku timidba ayuu yidhi waxayba ku timid ayaan rajaynaa maalintaas hadalkii ahaa ayay curintan sharci ku timid golaha shacabka soo curiyeen sidaa darteed xukuumad ka aamusan meesha ma jirto xukuumad war kale loogu noqonayo ma jirto guddi inta la saaro muxuu soo qaban doonaa waxa uu soo qaban doono guddiga hal la isweydiiyo guddi aan saarayno hadda maaragtay ka soo shaqeynayo oo information cusub noo keenayo ma jiro waajibkeena aan ka gudano waa mahadsantihiin salaamu calaykum howlwadeennada aqalka bahda warbaahinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa la daalay waa lagu daalay arrintan runtii wax kastoo la oran lahaaba waxaan u malaynayaa fursadda dadkii saaka ay heleen annagu hadda ma haysano oo waa sababtaan u malaynayaa sida loogu soo kala dheereeyaan u malayn maantay mudane guddoomiye xeerkan na hor yaal oo ah dhowridda gobonimada midnimada iyo geyiga Soomaaliyeed oo ay soo gudbiyeen golaha shacabku ay u soo gudbiyeen aqalka sare marka hore waa soo dhaweynaya waxa weeye si sharaf iyo karaamo leh baan u soo dhaweynaya shaqo dadka Soomaaliyeed u baahnaa bay soo qabteen waxaana ka codsanayaa xildhibaanada muxuu ahaa golaha aqalka sare waxaan ka codsanayaa in halhayska ah golaha shacabku wuxuu soo qabsaday waajibkiisii buu soo gutay inaan halkan intii qof annaga istaaga yiraahdo way soo degdegeen lagama doodin lama yani cid kale aqalkeed baan ka sheekaynaynaa ma mudna arrintaas raaligelin baanan anigu shakhsiyan ka siinayaa golaha shacabka erayadii halkan ka baxay ee ku jeeday way soo degdegeen arrintu waxa weeye mid loo degdego weeye degdega ay sameeyeen waa arrin taal meeshaan mudan in loo degdego waa arrin mudan in waktigii la rabo la siiyo mudane guddoomiye mar haddii laga hadlayo masiirkii iyo jiritaankii iyo midnimadii ee geyiga Soomaaliya wax la isku diiday baa meesha ma yaalin wax annagu maanta aan isku diidnaa meelaha loo xarig jiidayo anaga nagama jirto Soomaaliya kama jirto Soomaaliya waa dhibaataysanta ayadoo dhibaataysan annagu halkan yaana dhibaato kale ka abuuri aragti yani waxa weeye warqadan waxa lagu soo qoray xeerkan ma ahan mid dhibaataynaya Somaliland ma ahan mid dhibaataynaya Puntland ma ahan mid geyiga Soomaaliya dhibaataynaya waa mid ilaalinaya karaamadooda iyo midnimadooda iyo sharaftooda mid ilaalinaya weeye mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa maadaama waqtigu uu yar yahay in
xeerkan wuxuu ka yacni arrinta hadda laga hadlayaa dhibaatada soomaaliya hadda dhex taal wuxuu ka yahay mid wax yar buu ka yahay waxaan waxba ahayn waa cad yar weeye waa ka inaan ka hadalno d b well xaggay joogtay iyo xaggay ahayd iyo xaggay ahayd maxaan ka hadlaynaa waxaa laga hadlayaa dalkayagii oo ay qaybsanahayaan dad aan wax sharciyada oo ay ku leeyihiin aan la arag la qaybsanayo la jarjaranayo war wixii 1988 odayaashii soomaaliyeed oo 60-ka ahaa oo 8 gobol oo soomaaliya jirtay ka yimid oo gobolkii hawd la oran jiro soomaali ka yimid Ethiopia oo ka yimid NFD ka yimid ee ra'yigoodii ku taageeray Soomaaliya nalama qaybinaya ingiriisku markuu ku beer lacawsaday aan shantii naba isu keendaro adigu naga tagaaliyay annaga tashanayna adduunku maanta meesha uu marayo inaan cadowgii iyo saaxiibkii iyo kii waxna dalka iyaga wax tarayay iyo kii lugoynayay iyo kii rabay inuu asaga dhan qaato in la kala garan waayo aaday nasiib darro u tahay erayada qaarkood maanta halkan ka yeeraya aaday ii dhibayaan waa mid shakhsiya aaday ii dhibayaan in la qabiileeyo in la xaafadeeyo in la masaalixeeyo arrintaas iyada meesha kuma jirto mudane guddoomiye arrintan d b well waa ka baaxad weynta waxaan soo jeedin lahaa dowladda Ethiopia iyo dowladda Imaaraadka heshiiskan ayagaa sal u ah shirkadani marna waa madax banaanta la sheekhi yiri oo kale la jiifiyaano banaan marna waa dowlad marna ma ahane waa shirkad madax banaan oo waa sahan weeye waa sahan shaqo loo diranayo qofkii maantay walaalaheena golaha shacabku shaqada ay soo qabteen si qurxoon ilaa hadda ma hayo ilaa saaka waa dhagaysanayay daliil sharci ah ilaa hadda lama sheegin waxa daliil sharci oo la sheegay ma jirto waxay ahayd qodobkan saasay ku gafeen qodobkan saana ku ekaa qodobkan sidaanu ahaa hadduu yahay mid caalamiya ama uu yahay mid qaran uu yahay waxaa la xuso ay xuseen si sharaf badan oo qiimo leh oo taariikhiya waa bilowgii koowaad ee Soomaaliya xorriyaddeeda iyo dib iskugu soo noqoshadeeda iyo wada jirkeeda iyo ilaalinta xuduudaheedii dalkeeda qodobkii ugu horreeyay wey waxaan soo jeedinayaa yacni war Soomaaliya waan ognahay taagdaraan haysa taagdarra waxaan nahay siyaasadeed waxaan nahay mid dhaqaale waxaan nahay mid ciidan waa ognahay dalka iyaga inuu burburay oo daciif yahay waa ognahay laakiin waxaa la yidhi muxuu ahaa waa xoolo yartaas loogama haro sadaqada loogama haro daciif baan nahay haddeera madaxa usii dhiganayna gumaysi kale yaan la yeeli taagdaridaas iyo waxaasoo ay tahay wax kale haddaan weyno waxa weeye cod sharciyahan ku difaacayna almiino annagoo cod sharci ku difaacayna balaayo kale hanagu habsato hana la qabsado waxaan taageerayaa in loo codeeyo sharcigan sida uu yahay loogu codeeyo maantana loo codeeyo markii ay dhammaato doodu labada arrimood oo loo codeynaya waxay tahay haddii guddi loo dirahayana
oo la isla gartay in guddi loo dirana cod bay ku soo baxaysaa. haddii la isla garta inay sideeda lagu leeyahay cod baa sideeda u gelinaynaa. yacni waa xaq dadka soo jeediya walaalahay, waa ra'yigoodii, yacni waa tixgelinaya. laakiin baarlamaanku waa doodaa, cod bana ku kala haraa. mudane guddoomiye, waxaa ka baxsan arrintan kor baa laga dhayo, waxaa la yihi dib iwal kaliya aan aadno. aabbohu ka weynan aad iska dhacan kan yar iga dhici, dib iwal aadno ma jirto. waxaan codsanayaa mudane guddoomiye, mudane yaal, in warqad loo qoro xukuumadda federaalka soomaaliya, ay ka soo jawaabaan, ka bixiyaan warbaahinta iyo dadka soomaaliyeedna inay la wadaagaan Etoobiya iyo Emiraadka waxa dalka yaga hadda ay ka hayaan iyo waxa ka jira ee ciidan leh, ee siyaasad leh, ee dhaqaale leh, ee iska daba wareeg leh, meel aan u soconna aan gaanahay, ee damaadka leh. waxaan codsanaynaa ra'yigaas in warqad xukuumadda loo qoro. waxaan u leeyahay, waxaan ixtiraamayaa, waa daris bay nala yihiin, dano badan baa naga dhexeeya. in marka laakiin danahaas naga dhexeeya inay naga indhasaabaan mugdi qabali ah oo inkaari ku dhacday oo hawdka aan ku wada jirno maaha. warqada loo qoro xukuumadda laleeyahay labadaa dowladood xiriirka calaqaadka sida waa ilaalinaynaa, waxay nagu leeyihiin dhowris, waa daris weeye. dariskuna xaq buu kugu leeyahay, annaguna xaq baan ku leenay. dalka yaga in cid kale haddii aana waxba ka qaban karin waxa kan, war shacbiga soomaaliyeed intaan banaanka istaagno aan idhaahno shacbiga soomaaliyeed ha loo baaqo, ha la yidhaahdo soomaaliyay tashada, ha la yidhaahdo. haddaana anagu u hayn sharci, haddaana u hayn nidaam, haddaana u hayn kala dambeyn, haddaana u hayn dhowris sharci, haddaana dhowreyn. aad baa u mahadsan.